sidee baad u iibsan kartaa Google Drive haddii uu kaa buuxsamo Gmail-kaaga? Waa mid ka mid ah su'aalaha ugu badan ee la i soo weydiiyo oo aan doonayo muuqaalkan inaan kula wadaago qaabka aad u kordhisan karto Google Storage-kaaga ama Google Drive-kaaga haddii uu kaa buuxsamo. Mararka qaar haddii Gmail-kaaga ama Google Drive-kaaga uu kaa buuxsamo, waxaa iman doonta markaa in xitaa emails ay kuu soo dhici waayaan oo markaa uu kaa xanimo. Waxaan doonayaa muuqaalkan inaan idinla wadaago qaab fudud oo markaa aad upgrading ugu samayn kartid oo aad u kordhisan karto Google Drive-kaaga soo dhawaada. Waxaan doonayaa muuqaalkan inta aan guda galin inaan ka codsado muuqaalka noo sii share gareysaan soo dhawaada markaan isla eegno. Si aad inta soo qaabka aad u iibsan kartid Google Drive-kaaga, waxaan halkan ku hayaa account Gmail ah oo aan isticmaalo kaasoo markaa buuxsamay oo u baahan in loo iibiyo markaa storage cusub. Marka waxaan doonayaa in step by step aad inta qaabka markaa aad u iibsan karto. So marka ugu horeysa adigoo ku dhex jira Gmail-kaaga waxaad tagi doontaa halka geeska 9 dhibcood ku yaalaan kadibna markaa waxaad tagi doontaa Google Drive-kaaga. So halka markaad timaado Google Drive wuxuu ku siin doonaa markaa warnings ama calaamado badan oo kuu sheegaya in storage-kaaga ka buuxsamay, digniino badan oo ku siinaya markaa uu ku dhihi doono storage-kaaga wuu buuxsamay, storage cusub iibso. Marka kaliya aad waxaad samayn doontaa markaa in aad taabato buttonska mid ka mid ah. So sidoo kale waxaad u baahan tahay si aad u isticmaasho tutorial-kan ama casharkan aan idiin sheegayo, kaliya waxaad u baahan tahay in aad diyaarsato kaar aad lacagta ku bixin karto. Aniga hadda waxaan isticmaali doonaa Wafi Virtual Mastercard. Marka haddii aad Wafi aad isticmaasho, lacagta EVC ay kugu jiro oo ku iibsan kartaa adigoona warwareer badan gelin. Haddii aad kaarar kale isticmaalaysan mar walba waxaa laga doonayaa markaa in ay kugu jirto lacagta aad ku iibsanayso in yar oo ka badan. Maybe waxaa laga yaabaa in fees iyo waxyaabo la mid laga jarto, laakiin markaa waa in xogaa yar ay ka badan tahay. Marka taa markaa soo diyaarsatay kadib waxaad soo geli doontaa Google Drive-kaaga, kadibna markaa waxaad taaban doontaa halkaas sare ku qoran tahay Get Storage ama waxaad taaban kartaa qaybtan hoose ee geeska ay ku qoran tahay Get More Storage. Marka labada meelba waxaa ku arki doontaa calaamado guduud ah oo kuu sheegaya markaa inaad u baahan tahay inaad iibsato storage badan. So haddii imika aan taabto Get More Storage kadib waxaa ii furmi doona markaa window cusub ama tab cusub kaasoo markaa ii sheegi doona markaa in aan iibsado storage cusub. Marka halkan wuxuu ii sheegi doonaa wuxuu ii siin doonaa markaa planska ama qaybaha kala duwan ee markaa aan iibsan karo. Haddatan sida caadiga ah labada plan uu ii sheegay waxa weeye mid 100 GB ah oo markaa bishii laga qaadayo $2 ama markaa sanadkii oo dhan laga qaadayo $20. Marka kan 100 GB qofka aan storage far badan u baahnayn oo markaa emailskiisa iyo dhowr sawir uu doonayo inuu markaa gashto Google Drive-ka uu isticmaali karaa. So sanadkii oo dhan waxaa laga qaadayaa $20 oo markaa ka yar bishii $2. Haddii kalena markaa waxaad isticmaali kartaa bil kasto in $2 laga qaado, laakiin aan waxaan kugula talinayaa markaa inaad kan sanadka iibsato sababtoo waxa laga yaabaa bilaha qaar inaad ilowdo oo markaa feelashaadii kaa lumaan oo lagaa tirtiro. Marka kan sanadkii isku day inaad lacagta soo diyaarsato oo markaa is dhaafiso. Sidoo kale markaa bilbil u iibsanayso way ka lacag badan tahay oo bil kasta markaa waxaa laga qaadi doonaa $2 oo markaa waxaa ku raaci doonta $4 oo markaa dheeraada. Sidoo kale haddii aad doonayso markaa 200 GB ayadana markaa waxaa laga qaadi doonaa $10 bay dheertaa sanadkii ama $1 bay bishii dheertaa. Marka waqti farqi aad u badan ma u dhaxeeyo, balse waxay ku xiran tahay adiga baahidaada. Haddii aad buuxin karto 200 GB waa iibsan kartaa, laakiin 100 GB wuu kugu filan yahay just hadda emailska iyo sawirada mobilka ku gashay doonaysa inaad ku backup garaysato kan baa ka badan adiga. Haddaba markaas aad u iibsato waxaad taaban doontaa meeshan ay ku qoran tahay subscribe. Hadda taani kan bish aan ku tijaabinayaa kadibna markaa agree baan dhihi doonaa. Kadib halkan wuxuu kuu sheegi doonaa Google in aad doorato kaarka aad doonayso markaa lacagta inaad ka bixiso. Haddii kaarar badan ay kugu xiran yihiin sida anigoo kale just kaarka taabanaysaa kadibna markaa waxaad dhihi kartaa add new card ama markaa kan kugu xiran ee hadda ku aadan baa isticmaali kartaa. Sidoo kale waxaad lacagta ku bixin kartaa PayPal haddaad doonaysid. Marka aan hadda kaar cusub aan ku darayaa kaas ma isticmaalo iminka. Kadib markaad kaarkaaga geliso iskana hubi in kaarkaaga lacag kugu jirto. Tusaale iminka aniga $2 baa laga rabaa. ugu yaraan waa inay $2 iyo $3 ku jirtaa kaarkayga si markaa aan u bixiyo lacag bixintan. Kadib markaa save card baan dhahayaa soo marka hore save card buu ku dhahayaa kaarka ku save gareynaya lacag bixinta kadib bay imaan doontaa. Kadib sida arkaysaan kaarkayga waa la ii save gareeyay haddeertaan isaga active ah Mastercard-ka 1191 u dambaysa weeye. Kabacdi markaa waxaa dhihi doonaa subscribe. Kadib sida arkaysaan wuxuu ii sheegayaa in subscribed uu yahay oo markaa lagu guuleystay in aan iibsado markaa Google Drive-ka 100 GB ah. Hadda si aan u hubiyo waxaan sameyn doonaa waan iska xirayaa kan kadibna Google Drive-kayga ku noqonayaa ama waxaan eegi doonaa markaa halkan asaga ii sheegayo already wuxuu ii sheegi doonaa markaa in aan ku guuleystay inaan Google One iibsado haddii non tax aan dhaho. Hadda wuxuu ii sheegayaa markaa 100 GB in aan 14 GB dhibic 86 ka isticmaalay oo markii hore 15 GB lagu talagalay already waan isticmaalay. Hadda markaa wuxuu ii sheegayaa in 14 kaliya aan ka isticmaalay storage-kayga oo markaa aan ku guuleystay in upgrading ka sameeyo. Waxaan rajaynayaa muuqaalka wax badan ka faa'iidaysatay. Haddii wax cilad ay ku qabsato comment-ga nagu soo qorsay markaa aan kugu caawino. Sidoo kale waxay igala soo
xiriir kartaa WhatsApp-kayga haddii aad doonaysid markaa in Google ama Google Drive in lagu iibiyo waan kaa caawin doonaa waxaan kaa codsanayaa markaa muuqaalka inaad noo sii share garayso haddii platformskeena ku cusubtaan markaa inaad kusoo biirto. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.